رمضان وناكسن كسلو امتحانين سماح رمضان وأنا قلت لك الله إن أدخل وداقنا سماح بيشن بركة سنة رمضان أنا ودي سوق بين دونا أنت لو وجود جرب بيشن بركة سنة رمضان وأنا هاي عبد العزيز ميجاك قيبتنا ما أنت نحن كسر قادم دونا مهمة أما فائدوينك أي صلاة التراويح دول اللي ده هاي قفكم مركب وافرو وأنت بدنا نعونه صلاة التراويح ده هيا لو تحكي لي جميع الجريد أو لما يسترن maadaama dhammaan mulqaha jirku ay sameynayaan dhaqdhaqaaq dhameystiran xilliga uu qofku oogayo salaada taraawiixda Dr. Suhail Al-Arabi oo ka tirsan shirkadda Hamada Medical Corporation ayaa waxa uu sheegay in salaada taraawiixdu ay la mid tahay jimicsiga oo kale qofkan ka caawinaysa inuu gubo maadooyin badan oo jirkiisa miisaan ku dari lahaa doctorku sidoo kale waxa uu sheegay in dibirada iyo calo istaagu ay yihiin astaanta jimicsanaanta iyo sidoo kale caajisnimada salaada taraawiixduna ay taas bedelkeeda ay siinayso inuu qofku iska dhimo miisaankiisa iyo sidoo kale dibirada iyo calo istaaga dhanka kale hay'adda American Islamic Research waxay sheegeen in salaada taraawiixdu ay qofka ka caawinayso inuu yareeyo xaddi badan oo miisaanka jirkiisa ku kordhi lahaa marka uu cuno cuntada afurka waxayna carabka ku adkeeyeen in dadka tukada salaadaha waajibka iyo kuwa sunnada ah ay aad u nasiib badan yihiin waliba ay yartahay khatarta ay ugu jiraan cudurrada qaar faa'iidooyinkaas iyo ka badan ay ka sheegayaan cilmi baarayaashu laakiin waxaan ognahay in qofka muslimka faa'iido badan ay ku fadhido bishan barakeysan ee Ramadaan hadaba muhiimadda ay siisay diinteenu iyo sida ay weynaysay hanoo sharxo Sheekh Axmed Burille salaada taraawiixda waxay ka mid tahay salaadaha la dukado habeenka salaadaha habeenka la dukaday ka mid tahay sunnooyinka habeenka la dukaday ka mid tahay hadda salaadaha habeenka la dukadana bacda alfariida salaada ugu fadli badan ugu qiimo badan waaye salaada waajibka kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi afdalu salaat salaatan ugu fadli badan bacda asalaati almaktuuba salaadaha waajibka ah kadib amba salaad waajiba kadib salaada ugu fadli badan ugu yacni ajirka badan ugu thawaabka badan waa asalaatu fii jawfi lleyl waa salaada la dukado habeenka dhexdiisa salaada la dukado wa salaada taraawiixda goormay soo bilaabatay fii zamani nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga xilligiisa ayay soo bilaabatay sanadka laakiin lama oga nebigu wuxuu dukaday saddex maalmood saddex habeen amba laba habeen habeenka koowaad oo dukaday jamaaca ku daba tukatay habeenka labaad oo dukaday jamaacadii jamaaco ka badanaa ku daba tukatay habeenka saddexaad oo dukaday jamaacadii jamaaco ka sii tiro badan ayaa ku daba tukatay habeenka afaraad nabiga ma imaanin khashyata an tufrada cala almuslimiin cabsi uu ka qabo salaadaas in muslimiinta lagu farad yeelo isla markaana ay awoodi waayaan marka qof kastaba gurigiisa laga bilaabo xilligaas qof kasta gurigiisa uu ku tukanayay ilaa laga soo gaaro yacni xilliga amiiru lmu'miniin cumar bnu lkhadaab radia allaahu canhu cumar ayaa jamciyey dadka isu keenay jamaaco uu sameeyey jamaaco ku dushiyey taraawiixda waa jamcu tarwiixa wa tasmiyatuha bihada alism waxaa lagu magacaabay lianna almuslimiin cindamaa yusalluunaha yaquumuuna biاlistiraaxati bacda kuli 4 rakacaatin 4 rakac kadibba muslimiinta dadka dukanaya salaada taraawiixda waxay sameeyaan jalsat اlistiraaxa yacni yaquumuuna biاlistiraaxa waxyaray fadhiisanayaan bacda kuli 4 rakacaatin sidaas ayaa waxaa loogu magacaabay yacni taraawiix taraawiixna waa jamcu tarwiixa dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan in qofka uu sameeyo jimicsi jireed xilliga uu cuntada afurka cuno kadib